السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub isoo noqdo wacan wanaagsan maanta muuqaalkeen waxa ku saabsan yahay nin la yiraahdo Juxa hadaba waxa laga yaabaa marar badan inaad maqashay ama laga sheekeeyay nin la yiraahdo Juxa oo kaftan badan hadallo badan la yiraahdo hadaba maanta waxaan muuqaalkeen ku eegi doonaa muuqaalada qosolka iyo kaftanka iyo maada ah ee uu leeyahay Juxa maalmaha kamid ah ayaa waxa uu Juxa soo koray mimbarka masaajidka markaasuu dadkii ku yiri waa ma garanaysaan waxa idin sheegi doono dadkii ayaa yiri garamayno waxa noo sheegayso intuu mimbarka ka soo degay ayuu yiri maxay faa'iido leedahay hadeedaan gareyn waxa idin sheegayo hadana maankii kale ayuu soo noqday Juxa oo mimbarkii fuulay dadkiina waxa uu ku yiri waa ma garanaysaan waxa idin sheegi doono markaasay dadku markay yiraahdeen ha waan garanaynaa waxa noo sheegayso inta uu mimbarka ka soo degay ayaa uu yiri maxay faa'iido leedahay hadaa ogtiin waxa idin sheegi doono maalintii saddexaad ayay dadkii go'aansadeen inay barnaha yiraahdaan barnaamij yiraahdaan oo isqabsadaan Juxa ayaa maalintii saddexaad soo noqday oo mimbarka fuulay hadana markan Juxa waxa uu yiri war ma garanaysaan waxa idin sheegi doono dadkii ayaa barnaha yiraahdeen barnaamij yiraahdeen markaasuu intuu mimbarkii ka degay buu yiri kiina ogi kiina aan ogina u sheego maalin ayaa Juxa oo dameerkiisa saaran ayaa nin la kaftamay oo damcayn la kaftamo markaasuu ku yiri war Juxa adiga kuma garan ee dameerkaaga ayaa gartay markaasuu Juxa ugu jawaabay waa caadi oo dameeruhu iyaga siqaana maalin ayaa Juxa waxa aragtay gabadhiisa isagoo laf timir ku liqaya markaasuu ku tiri war Juxa maxaa ku dhacay xaga timirta lafta u liqasa markaasuu ku yiri ninkii yeeyay uu iimisaabay oo hal shilin iga mudeen ana waxay lacag gashay ma qubi karo ma daadin karo Juxa waxa uu ahaa nin geerida aad u naab maalmaha kamid ah ayaa soo gurigiisa hor fadhiya waxa la soo mariyay meed naxash lagu wado Juxa ayaa lagu yiri Juxa waxa fiican meedka marka la sida in hore laga maro mise in xaga dama laga maro Juxa ayaa ugu jawaabay amba hore ka mar amba xaga dama ka mar laakiin muhiimadu waa in aad ahayn kan naxash lagu sido maalin ayaa Juxa oo deegaanka la marti ku ah waxa ka lumay saabkiisii ama weysadiisii markaasuu ku yiri dadkii magaalada haddii sida uu dhaqsiyaa badan la saabkayga isiin wad garanaysan waxaan sameyn doono maadaama uu ahaa nin madaxa oo laga dambeeyo oo la qadariyo dadkii waa isku yaacay oo waxa la baadi doonay saabkii in loo soo helo hadaba markii dambe waa loo soo helay saabkii kadib waxa lagu yiri Juxa hadaa saabkaaga saa ku weey lahayd maxaa sameyn lahayd markaasuu ugu jawaabay de waan iska bixi lahaa oo mid kale ayaan sameeysan lahaa maalmaha kamid ah Juxa waxa uu yimid nin ay xigta iyo qaraabo ahaayeen oo dhibka badan iyo kaftanka badan ku yaqaanay markaasuu ku yiri Juxa dadka waxa loo bixiyaa mutasib billaah iyo mutawakkil billaah aniga maxaad bixin lahayd markaasuu Juxa waxa ku yiri adiga waxa ku bixin lahaa a'uudu billaah maalmaha kamid ah ayaa ninkii Juxa oran jiray waxa uu sii dameer u lahaa siiladii uu iska iibi kadib markii uu siiladii yimid ayuu nin isku dayay inuu ka iibsado dameerka ninkii ayaa damcay inuu iska eego dameerka ka hor intaan iibsan ninkii ayaa aagay afka iyo sanka dameerka si uu hubiyo inay ujil jiraan wax nabaro ku yaala dameerka dabeeto dameerkii ayaa ninkii qaniini gaaray ninkii intuu naxay ayuu dib u booday kadib markii uu dib u booday ninkii ayaa uu hadana dameerkii haraati ku dhufan gaaray dabeeto ninkii intuu Juxa aad u eegay buu ku yiri war Juxa dameerkan cidna ka iibsamayso waayo waa uu dhib badan yahay hadii aad istira hormar waa uu ku qaniinaya hadii aad istira dabamarna haraati ay ku dhufanaya halkii ahayd inuu Juxa amaano dameerkiisa ayaa waxa uu yiri waan ogaa dhibkiisa laakiin waxa isla dadku ha kula arkaan oday Juxa ayaa bari ka kireystay guri nin uu aad u yaqaanay kadib markii uu gurigii Juxa u soo guuray ayaa gurigii waxa ku arkay ceeb aanu ku ogeey waxaana uu ku arkay in saqafka sare ee guriga uu jilicsanaa oo ay dabayshu luxaysay oo habeen iyo maalinba uu ka saxan leeyahay ninkana waxa uu tagay inuu guriga ka sameeyo amba uu ku hagaajiyo Juxa waxa uu tagay ninkii guriga lahaa waxaana uu ku yiri gurigaaga saqafkiisa aad ayuu jilicsan yahay waa inaad iga hagaajisa ninkii guriga lahaa ayaa ku yiri waxba ka baqan saqafku Allah ayuu tasbiixsanaya Juxa oo fahmay in ninkii khiyaamaynayo oo uu diin ku xujeynayo ayaa waxa uu yiri waa runta oo waan ogahay taas laakiin waxa ka baqaya inuu qalbi jilaac ka bato oo isagoo sujuudsan uu nagu soo dulaaco maalmaha kamid ah ayaa Juxa waxa yimid qof waxa uu sheegay in uu dameerkiisu lumay kadib Juxa ayaa farxad la dhacay oo sujuudo Ilaahu mahadnaqay kadib waxa la weydiiyay war Juxa maxaad u sameynaysaa dameerkaaga ayaa lumay Juxa waxa uu yiri Ilaahay ayaan u mahadnaqayaa hadaana saarnin dameerkayga markii uu lumayay maalmaha kamid ah ayaa Juxa waxa lagu yiri Juxa kaalay adaa cod macaane salaada cishayna kadib waa uu aqbalay waxa uu yiri waa yahay waan tukin doonaa dadkiina salaadii waa u tukiyay Juxa
haddaba dadkii ayaa juxa kala dhamaan waayey alla juxa waa cid macaan tahay alla juxa waa cid macaan tahay markaasuu ku yidhi weliba maan weyse qabine haddaan weyse qabi lahaa waa la yaabi lahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa juxa waxa uu aaday suuqa si uu u soo iibsado kiish bur ah amba daqiiq ah kadib waa uu soo iibsaday waxaana u yeedhay nin xamaaliga haw qaada oo gurigiisa u geeya kadib juxa iyo ninkii oo wada socda ayaa waxay soo mareen suuq dad badan ay joogaan oo lagu buuqsan yahay kadib juxa iyo ninkii ayaa kala lumay juxa ninkii waa diidayey meel kastana waa ka raadiyey laakiin waa uu waayey juxana waxa uu iskaga noqday gurigiisa maalin dambe ayaa juxa waxa uu arkay ninkii xamaaligaha waana uu ka dhuntay dadkii ayaa la yaabay oo ku yidhi waa juxo maxaa kuu dhacay aad la dhumanaysaa juxa ayaa ugu jawaabay waxaa ka baqayaa ninkaasu inuu weydiiyo lacagtii xamaaliga ee maalintii maalin maalmaha ka mid ah ayaa juxa waxuu yimid sab aba duco meel duca lagu cunayo kadib waxa uu arkay carruur badan oo iridda guriga taagan kadib waxa uu yidhi carruurtan saas kaga dirtaa carruurtii ayaa u yeedhay waxaana uu yidhi guriga inaga soo horjeeda 2 neef baa lagu qalayaa ee ordo aada kadib carruurtii caga ayaa wax ka dayeen oo way carareen kadib juxa ayaa run mooday hadalkii uu carruurta ku yidhi kadibna carruurta ayuu isna ka daba cararay hadda ka hor ayaa juxa la damcay in gabadh ay xigta iyo qaraabo yihiin loo doono oo loo guuriyo inkastoo aanu isagu gabadha hore u arag laakiin waxaa loo sheegay inay gabadhu aad u qurux badan tahay oo ay qancin doonto ayna noqon doonto mid uu muddaba raadinayay habeenkii markii gabadhii la soo galbiyey ee gurigiisa loogu keenay ayaa juxa waxa uu arkay inay gabadhu foolxun tahay subaxii markii uu waagu baryey ayaa gabadhii waxay juxa ku tiri juxow nimanka qaraabadaada ah kuwa aan iska asturayo iyo kuwa kale kala sheeg juxa inta uu aad u qoslay ayaa ku yiri dadka oo dhan u muuqo oo iska qarin laakiin aniga iska gaasto haddaan ugu cusub tahay fadlan subscribe saar oo ka mid noqo asxaabteena ku taxanadooda YouTube muuqaalkana like saar asxaabtaadana la sii wadaag ballanteenu waxa weeye calaamadan cas haddaan ugu bedela aad baa mahadsantihiin saaxiibayaal dhammaantiin waxaan ilaahay kulan dambe xiisaha ila liqa